720 gaadiidka dagaalka ah oo ay leeyihiin ciidanka beesha Ciise ayaa goordhow ka soo tallaabay xadka Djibouti. gaadiidkan waxaan ogaanay inay gudaha u galeen saldhig ciidan oo ay leeyihiin ciidanka beesha Ciise oo ku yaala tuulada Ceelgaal. sidaas si lamida tuulada Habaas waxaa laga soo warinayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan. beesha Samaroon oo xilligan qarka u saaray inay isdhiibaan ciisaha oo garab iyo gaashaan ka helay dawladda Djibouti iyo faahfaahinta wararkii ugu dambeeyay ayaan ku soo gudbin doonaa. waxaan kale ku soo gudbin doonaa suldaanka guud ee beesha Samaroon oo wada hadal ogolaaday xaaladda oo ku xun iyo kulamadii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Hargeysa. waxaan kale ku soo gudbin doonaa dhaqdhaqaaqyo xoogan oo dhanka ciidamada ah oo si weyn looga dareemayo deegaano hoos yimaada magaalada Og oo ah saldhigga ugu weyn ciidanka Somaliland ee gobolka Sool. qodobadaas iyo waxyaabihii kale nagu soo kordha ayaan saaxiibayaal idin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada. haddii taa markii kugu horeysay ku soo birid waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno. aragtidaada qaybta commentiga kaga dhiibo muuqaalkan aad daawanaysidna like saar. 720 gaari oo iskugu jira Cabdibile, Cadhameyle iyo Waaraad iyo Dhaynayaal ay ku raran yihiin asgar hubeysan iyo qoryaha dorondooriga u dhaca ayaa barqanamadii maanta waxay ka soo gudbeen xadka Djibouti iyo Somaliland. gaadiidkan xalay waxay ku hoydeen deegaan la yiraahdo Sabiix oo markaasi ku yaala dalka Djibouti waxaana ay soo mareen deegaano dhowr ah oo u dhaxeeya Itoobiya iyo Djibouti kadibna waxay soo galeen xadka gobolka Awdal sida ay wararku tilmaamayaan. gaadiidkan sidaan idin sheegay waa 720 gaari ma wataan wax calaamad ah oo lagu garan karo dabcan ama inay Djibouti leedahay ama inay Itoobiya leedahay ama in dawlad deegaanku ay leedahay ama xataa in Somaliland ay leedahay. ragga gaarigan la socda waxaa la sheegay inay yihiin rag u badan dhalinyaro oo wata shaatiyaal garamo iyo sidoo kale macawiso. waa rag dabcan u soo dagaal tagay ama u soo xirxirtay inay dagaal qaadaan. baaris aan sameeyay ayaan ku ogaaday in gaadiidkan ay yihiin kuwa ay bari isticmaali jirtay Djibouti laakiin hadda howlgab noqday oo aan la isticmaalin. si haddaba aan loo ogaan inay Djibouti gaadiidkan casriga isticmaasho, Djibouti waxay beesha Ciise ku hubaysay gaadiidkii duqoobay ama howlgabka noqday oo aan inta badan la isticmaalin. si bari ka maalin Djibouti haddii loogu qabto eedeymahan ay tiraahdo gaadiidkan waxay noqdeen howlgab kadibna magaalada ayay galeen sidaas ayayna beesha Ciise ku heshay. daawadayaal waxaan hore idinkugu sheegay xaaladda u dhaxaysa Ciisaha iyo Samaroon inay ka gudubtay xadka gobolka Awdal oo ay tagi doonto Djibouti iyo sidoo kale Itoobiya iyo dawlad deegaanka Soomaalida. haddaba dhowr qof oo xubno sarsare ah oo saraakiil u badan qaarkood oo aan la hadlay si aan wax uga weydiiyo gaadiidkan tirabeelka ah ee ka soo gudbaya xadka Djibouti waxay ii sheegeen in Somaliland ay ka warqabto dhaqdhaqaaqa socda isla markaana saacad walba laga cabsi qabo inay halkaas dagaal ka dhacaan. nimcaan Gaxnuug oo ah sargaal da'yar oo ka tirsan ama ugu sareeya ama sargaal kamid ah saraakiisha ugu sareeya militariga Somaliland ayaa warbaahinta gudaha dalka Djibouti wuxuu u sheegay in Djibouti ay kala hadleen sidii xal waaro looga gaari lahaa xiisadda ka dhaxaloosan Ciise iyo Samaroon. gaadiidkan waxa ay wararku tilmaamayaan in ay ku nasan doonaan deegaan la yiraahdo Bolol kadibna ay tagi doonaan deegaan la yiraahdo Xariida kadibna ay tagi doonaan Habaas halkaana dagaalka ay ka geli doonaan. warar kalena waxay leeyihiin waxay soo miri doonaan dhinaca Luuhaye oo kadibna Seylac ay halka ka soo gali doonaan Ceelgaal ayayna saldhig ka dhigan doonaan. yacni waa laba warbixin oo iskhilaafsan laakiin warbixinta ugu dhow waxay sheegaysaa in gaadiidkan ay ka soo tallaabeen dhinaca Djibouti dawlad deegaanka meelo kamid ah ay soo mareen kadibna Seylac sidaas ay ku soo galayaan. khubarada arrimaha la socota waxay leeyihiin madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro waa in uu ka shaqeeyo sidii si degdeg ah wax looga qaban lahaa caqabadaha ku horgudban in xal degdeg ah loo helo waxyaabaha la isku hayo. xogaha iyo wararkan helayna waxay tilmaamayaan in 48 saac la soo dhaafay sidaas oo kale dhaqdhaqaaqyadu ay socdeen oo mar walba laga cabsi qabay dagaalo baaxadooda ay weyn yihiin oo ka dhaca aagaasi sida ay tilmaamayaan wararka iyo macluumaadka aan helayno.
laba sargaal oo ka tirsan milatariga Somaliland ayaa goordhow waxay ii sheegeen in ay si weyn ula socdaan dhaqdhaqaaqyada milatariga Somaliland ay ka wadaan xuduudda isla markaana ay ka hortagayaan haddii la isku dayo in hub iyo tasiilaad kale lagu wareejiyo beesha Ciise ee la dagaalamaysa beesha Samaroon. ciisuhu markan garab iyo gaashaan aan qarsoonin waxay ka helayaan milatariga Djibouti, ciidamada New Police ee dowladda deegaanka iyo xataa dowladda federaalka Itoobiya. sababtoo ah ugaaska guud ee beesha Ciise oo dabcan si weyn ugu hadla luqadda Faransiiska, si weyn ugu hadla luqadda Soomaaliga, si fiicanna luqadda Amxaariga iyo Oromada ugu hadla, ayaa la leeyahay wuxuu markan sameynaya dhacdooyin inaba aan caadi ahayn. odaygu galaangalkiisu wuxuu marayaa meel aad u sarreysa oo waxaa laga cabsi qabaa marba marka ka dambaysa inay wax badan bannaanka yimaadaan oo la xiriira qadiyadda hadda taagan. si aan haddaba faahfaahinta xogta rasmiga u helo ayaan waxaan xiriiro kala duwan la sameeyey xubno saraakiil ah oo ka tirsan beesha Ciise, waxaana weydiiyey xogta iyo faahfaahinta wararka sheegaya in beesha Ciise xilligan ay diyaar u noqotay in ay qaado duulaan weyn oo ka culus midkii ka dhacay Habaas. sargaalkan la hadlay wuxuu sheegay ilaa inta xeerka buugga Ciise meel lagu hubsanayo ama xeerka buugga Ciise meel looga markaas lagu hubsanayo in aan sii wadi doono dhacdooyinka noocan oo kala ah isla markaana ay sii socon doonaan. sidaas lamida xubnaha la hadlay qaarkood waxay ii tilmaameen ama ii sheegeen in dhowrkii saace la soo dhaafay sidaas oo kale ay jireen aragtiyo la xiriira in ay wax badan bannaanka imaan doonaan oo la xiriira qadiyadaha hadda taagan. xogaha iyo wararka aan helayno ayaa waxay tilmaamayaan in 48 saace la soo dhaafay sidaas oo kale ay jireen aragtiyo bannaanka yimid oo la xiriira in maamulka Somaliland laftirkiisu uu qaadayo tallaabooyin dheeraad ah oo looga hortagayo cid walba oo qashqashaad ka bilaabaysa xuduudda. markan qodobadeena kale ayaynu saaxiibayaal eegaynaaye waxaynu fiirinaynaa qodobkeena kale wararka iyo macluumaadka aan ka helayno meelo ka mida gobolka Awdal ayaa waxay tilmaamayaan in suldaanka guud ee beesha Samaroon uu goordhow kulan degdeg ah iskugu yeeray inta badan saraakiisha maamulka Samaroon. kulanka waxaa la sheegay in bahda warbaahintu ay dibajoog ka tahay iyada oo kulanka diiradda lagu saarayo sida ay macluumaadka iyo wararku tilmaamayaan arrimaha la xiriira xaaladaha ka taagan gobolka Awdal iyo in beesha Samaroon ay wada hadal la furto beesha Ciise. sargaal ka tirsan maamulka Somaliland ayaa goordhow wuxuu ii sheegay in ay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqyada halkaa ka socda. waxay wararka iyo macluumaadku tilmaamayaan in labadii bilood ee la soo dhaafay ay jireen walaac iyo walbahaar xoog leh oo ku saabsan in beesha Samaroon ay isdhiibto. Samaroonku xilligan dhowr jeer waxay iyagu ku celceliyeen inaysan isdhiibeen oo ay dagaalami doonaan, laakiin aragti taa ka duwan ayaa jirta oo ah in Samaroonku wada hadal ay furaan maadaama dowlado waaweyn dagaalka ay soo galeen. xubnaha la hadlay qaarkood waxay ii sheegeen in bilihii la soo dhaafay sidaas oo kale cadaadis xoog leh uu fuulay suldaanka guud ee beesha Samaroon, kaasi oo loo sheegay inuusan Ciisaha la dagaalami karin maadaama Ciisuhu markan ay haystaan garab iyo gaashaan buuxo oo ah dowlad ka mid ah dowladaha Afrika ugu awoodda badan waana dowladda Djibouti. xubnaha waxay sidoo kale tilmaameen in dhowrkii saace la soo dhaafay ay jireen aragtiyo la xiriira in isku dhacyo ciidan la arki karo oo la xiriira xaaladaha halkaasi ka taagan. waxayna xogaha iyo wararku tilmaameen in bilihii la soo dhaafay ay si weyn u soo jiraan ama si weyn ay u jireen aragtiyaha la xiriira in la heli karo ama la arki karo isku dhacyo ciidamada ah oo bannaanka yimid oo la xiriira xaaladaha halkaasi ka taagan. xogaha iyo wararka aan helayno waxay tilmaamayaan in 48 saace la soo dhaafay sidoo kale beesha Samaroon cuqaashooda iyo waxgaradkoodu ay isku tageen kadibna hal go'aan isku raaceen oo ah bal in dib eegis lagu fiiriyo ama dib eegis lagu sameeyo in wada hadal la furi karo beesha Ciise. haddii wada hadalka beesha Ciise ay diidana la qaado tallaabooyin dheeraad ah oo lagula dagaalamayo beesha. haddii tallaabooyinkaasi ay socon waayaana in wada kale la maro oo ah in Djibouti la dacweeyo oo Somaliland lagu dacweeyo, sidaasna xaaladdu ay u noqoto mid bannaanka timid.
bilihii lasoo dhaafay daawadayaal waxaa jiray urursi xoog leh oo ka socday xadka Jabuuti iyo sidoo kale Somaliland sidaas si lamida beesha ciise waxaan anigu awal u maleynayay in beesha ciise ay tahay beel xogaa tabar daran oo aan dagaal aqoon laakiin markaan arkay gaadiidka faraha badan ee xuduudda ka soo tallaabaya markaan arkay sida ay beeshu markan u doonayso inay dagaal u qaado markaan arkay inay wax badan isbedeleen walaahi dib ayaan u gurtay sababtoo ah beesha ciise kartooda ima gasho sababtaan kuu sheegayaa dagaalkii hadda u dambeeyay ka dhacay Habaas gacan sareynta waxa iska lahayd beesha ciise sidaas si lamida beesha ciise waxay heshay gurmad dagaal oo inaba aan caadi ahayn oo ka yimid darafyo kala duwan sidaas si lamida beesha ciise hadda waxaa la leeyahay tallaabooyinka ay qaadayso waxay noqon doonaan kuwa sareeya oo waliba xaaladda dabka la ku sii shidi doona haddaba Cabdiraxmaan Ciro hadda waxaa la leeyahay waa inuu qaadaa tallaabooyin dheeraad ah oo markaasi xal waara looga gaarayo dagaalka hadda madaxweynaha Somaliland waxaa la leeyahay wuxuu tagi doonaa Jabuuti wuxuu tagi doonaa Ethiopia dowlad deegaanku tagi doonaa wuxuu soo afjari doonaa hubkii trabeelka ahaa ee beesha ciise la siinayay dabcan taasi haday dhacdo aan u maleyn maayo in xal u imaan karo sababtoo ah hadii beesha ciise awal loo diiday xeerka buuga ciise inay soo bandhigaan hadda xaaladdu faraha ka baxaysa oo waxaan arki doonaa isku dhacyo waaweyn oo dhanka ciidamada ah iyo xaaladda oo faraha ka baxday dadka arrimaha la socda waxay leeyihiin beesha ciise waa in ay horta samaysaa wax walba oo ku aadan in xaaladda la qaboojiyo xaaladdu haddii si degdeg ah loo qaboojin waayana bal waa in la sameeyaa ayaa la leeyahay wax kale oo ku aadan in xaaladdan si kale loo raadiyo xalkeeda oo waliba si dhow looga shaqeeya sida ay tilmaamayaan khubarada aan la hadlay dad kale oo arrimahan la socda sidoo kale waxay leeyihiin toddobaadyadii lasoo dhaafay si weyn ayaa loo abaabulayay arrimo la xiriira in ciidanka Somaliland iyo sidoo kale ciidamo isku dhaf ah oo Jabuuti ka socda la geeyo xuduudda laakiin taasi dabcan may suurtagelin haddii aad dabcan moodaysid inay jiraan aragtiyo la xiriira in beesha ciise ay xilligan samayn karto wax kaloo ku aadan in dagaalka ay qaboojiso waxaa ka horeysa oo beesha ciise ay taagan tahay horta waa in la ogolaadaa xeerka buuga ciise xeerka buuga ciise horta waa in la ogolaadaa waa in xeerkaasi la ogolaadaa isla markaana meel lagu hubsado waa qodobka ugu weyn oo xilligan ay si weyn u dharaandhirinayaan beesha ciise xeerka buuga ciise marka la soo bandhigo dabcan haddii xeerka buuga ciise la soo bandhigana mar kale ayay mudaharaad ka dhacayaan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal dad badan oo xaaladda la socda waxay leeyihiin waa in bal xal kale la raadiyaa oo la sameeyaa dhexdhexaadiyaal ka madax bannaan ciisaha iyo samaroonka oo turxaan bixiya xeerka buuga ciise qodobkeena ugu dambeeyana ciidanka Somaliland ayaa dhaqdhaqaaqyo xoog leh waxay ka bilaabeen deegaano fara badan oo hoos yimaada magaalada Oog oo ah saldhigga ugu weyn ciidanka Somaliland saldhiggaasi dabcan labadii bil ee la soo dhaafay waxaa si weyn loogu daabulayay hub aad u fara badan oo la sheegay in beesha ciise ay halkaasi doonayso aandhahe beesha Somaliland degta ay doonayso inay halkaasi ku adkayso dabcan qolaba waxay leedahay saldhigga ugu weyn maamulka waqooyi bari waa Gumeys saldhigga ugu weyn Somaliland waa Oog waxayna isku jiraan labadoodu 45 kilomitir mise 34 kilomitir meelahaas isku jiraan laakiin hadda dadka arrimaha la socda waxay leeyihiin Oog dhaqdhaqaaqyada ka socda marka la eego xaaladaha hadda taagan waa kuwii ugu sareeyay dawlado dhowr ah ayaa waxa la leeyahay waxa ay doonayaan in ay Somaliland ku taageeraan hub aad u fara badan si loo soo afjaro maamulka Urdunka ah ee saldhiggiisu yahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dadka khubarada ee arrimaha la socda sidoo kale waxay leeyihiin waa in la qabto xal degdeg ah oo ku saabsan xaaladaha taagan iyo in meel looga soo wada horjeesto cid walbo isku dayda inay qashqashaado nabadda iyo xasiloonida gobolka Sool labada bil ee la soo dhaafay laba jeer oo kala duwan ayaa hub laga keenay Berbera iyo hub laga keenay Hargeysa waxaa la geeyay saldhigga Oog dabcan abaabulka xoog leh halkaas ka socdana dabcan wuxuu noqon doonaa mid xawaarihiisu uu sareeyo isla markaana xaaladiisu ay tagto meel aan waxba laga qaban karin dad badan oo xaajadan la socda waxay leeyihiin waa in si degdeg ah xal looga gaaraa arrimaha la isku hayo oo bannaanka la keeno wax walba oo ku aadan xaajooyinka hadda taagan si markaasi wada hadal iyo wada xaajood xaaladda loogu dhameeyo
waayaha guud ahaana saaxiibayaal wararkeeni intaas ayay ku dhan yihiin hadday tahay markii kugu horreysay kusoo bixi doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno aragtidaada qaybta commentiga kaga dhiibo sida uu aragtid xiisadda Ciise iyo Samaroon iyo sida xal looga gaari karo waa maasantii saaxiibayaal soo dhawaada